السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواد برنامج كني هل أبورك مرتدى أو أنت بدن با أنا كسو قادنو سوغانتا كلا دوانة يا سومالي دو آيلاد هاي برنامج كنا تطبعات كان وحا أنو كسو قادن دونا أما أنو وريسو كلا يالان دونا أبوانا دعانكا سوماليات حلو بلحان علي أو يدو كمدا هوين كفركوتيريسكا يغو قبيا حلو وغهرين كسو دو سومالي channel waan ku dhawahay waan salaamayaa TV Somali channel iyo shaqaalihiisa dhamaan وهاجاك daawadayaal toddobaadkan waxa aanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan murtida hal abuurka gabay jawaab ah oo ay abwaanada xalwo ugu jawaabtay ragga Soomaaliyeed ee iyagu gabya gabaygaas oo magaciisa la yiraahdo guur aan kala aado haddaba gabaygan ayaa hadda ka hor waxa ka gabiyay الله أنا حريسته يوسف محمد حرسي أو كم قاعدة أو يوسف برة أو إسقو الله دردار ميا لبويل أو منا أدير وها منا أيل ما أدير هاي أو جوردون ها تريي جبي أما تريي جبي جيجور عن كلا آدو أو كوه قد تسألين يي حتى قبله لوجو تلاقي لي جور كوقت جاس إن أي كحشان dumarkii Soomaaliyeed waqtigaas joogay abwaanku isagoo hoga tusaaleynaya wiilashaas ayaa waxa uu beejidkiisa hore ee gabaygan uu ku tiriyay tixdan gabayga ah gaashgaashka waa lagu lumaa golka fuulka ah ha u gudoonsan waa kii aqligu gaan kugu ahaaye guri bilaninkii doonayay nacay goombaarta ee guur u jeedo imaqal waan ku garansiine guduud looma raaco haween gobolba waa ayne bidhaan gabi kala laada waa lagu gulaalmaayay isu gaadhay gabadha tirada meel uun baa go'ane gaboodley gaashadu ku taal labada goonyoodba ee maradu geyganan tahay guur aan kala aado haddaba daawadayaal gabaygaas guur aan kala aado waxa uu soo maray marxalado kala duwan iyo waliba waqtiyo kala fog muddo dheer kadib waxa isaguna gabaygaasi halkiisii ka sii waday allaha u naxariistee abwaan cabdiqaadir xirsi yaasiin yamyam oo isaguna tiriyay gabaygii guur aan kala aado isagoo waliba ku soo halqabsaday aw yuusuf barre allaha u naxariistee una sheegayay in haddii uu joogi lahaa waqtigan uu xaal siin lahaa gabdhihii joogay waqtigii أو يوسف برهي وكجبيي هذا عبدالقادر حسن يم يسوون تحديثي وحى وخذها فري قلت كي آخرين لو يقول رجال ومانجلية نحريس جوه بان ربي يكون جلنسيني أو يوسف جبيجي أهاجور عن كلا عضو قبله مركز شوجي دي جوجا شودا كفاك يا تلمامه عدا تكوجل ويدي هذا ما أنتو جوب شوجي لهيد كما جدادين دود إيه أظن قروح هرين قارئ آل حلتي bari hore gayaan iyo kuf baa wada gudboonaaye geelana midii qaayinta loo gunayn jiray intii aan bacaw qaadan lahaa golka joog fiican mar haday ka dhal wada noqdeen guur aan kala aado dabada wadayaal labadaasi abwaaba Allah u naxariistay gabaygoodaas guur aan kala aado waxay in badan ku lafagureen ama ay hoga tusaaleeyeen dumarka Soomaaliyeed inta aan guurka ku haboonayn iyadoo mar walbana ay jirto labada dhinac in dumar iyo ragba ay jiraan qaar aan xilkooda gudan ba hadana muddo dheer oo waliba ay go'asho dumarku ay qabeen waxa maanta guntiga dhiisha isaga dhigtay abwaanada weyn ee xalwo bulxan cali oo iyadu tirisay gabaygii guur aan kala aado oo waliba ay ku cadeynayso sifooyinka ragga intooda badan aan lagu guursan karin haddaba ugu horeyn xalwo adigoo aad iyo aad u mahadsan maantana halkan ka soo gudbin doona gabaygaagii guur aan kala aado oo jawaab u noqon doona labadii gabay ee ay kala tiriyeen allaha u naxariistee aw yuusuf barre iyo waliba cabdiqaadir xirsi yimam ee ahaa guur aan kala aado intaynan gudagelin gabaygaas iyo gabayo kale bal marka hore waxaad noo sheegtaa sida aad ku bilowday gabayada iyo waliba inkastoo ay jiraan dumarka Soomaaliyeed inta badan inayna u badnayn gabayaalayaal haddana bal waxaad nooga warantaa bal gabayadaas aad ku bilowday horta gabaygan waa hiddo anaga familkeena wada gabya rag iyo dumar badan oo xataa gabya familkeena waa ku jiraan marka asal waqti cayiman oo aan ku soo biiray malaha oo waa wax hiddo ka yimid marka waxaan ku faraxsanahay in aan maanta u soo bandhigo fikradeeda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed حلو بلحن أدياد أيضا ما سنتهاي داوديال وبرنامجكني مرتدى هالأبوركا وتضبط كان أي مرتين وقتهاي أبوانا دوين حلو بلحن علي
إن حلو أنا جوجوسن دونا إن برنامجك إن أنا كهر مرنو قبلي وتريه الله هو نحرسته أو يوسف بره أو إسقو وقت جاس يوليبا وعيي وقت جاتري يدمر كي الصوماليات إسقو دليل بدن أسود شدني إسقو هو قد ساليني ويلشي ومنا ذاك هوها منا أي المذاك هاين وقت جاي جردون كهاين بل قبل جاسي سامين أنت لقى يكوي شيء يدمر كالصوماليات يوسف بره قبل جيسي وحوها قبل macnaha dumarka hadda jooga ma yeelayaan xilligaas ku jiray waxa ay qaateen sababta asagu wuxuu lahaa reerka hawshiisii oo dhan tii asagu ka rabay iyo tii reerku ka rabayba qof dumar ah ayada kaligeed lagu daynayay ahayd laakiin kuwan ma yeelayaan dhinacaygan qabanaya dhinacaaga qabo waa marka Yuusuf Barre waqtigiisiiba asagu ka faa'iideystay iyo dumarkii xilligaa jiray sidii ay ugu jajabnaayeen hawsha reerkooda iyo macnaha amarka ragooda qofka xun waa la sheegi karaa gooni ahaan ragana doo waxay leeyihiin niman xun oo in loo gabiyo mudan dumarkuna waa leeyihiin taas loo gabiyo hadda asagu u lahaa wiilashiisa guur kala aada nin baa guursanaya oo u taagan kuwan maxaan dhahaa anagu hadda aan leenahay guur aan kala aadana gabdhaha guursanaya oo cidi isma oga oo waa la wada socdaa meesha marka gabayga hore wuxuu ila ahaa dhibaato dumarka loo geysanayo حلوة بولحان أدي أدو ما تصنتهاي إن مدة كذب وحاسنا هالكيسي كسي أنبقى أدي الله نحرسته عبد القادر حرسي يميم قبل يقول عن كلا أدو ويسقنا إن بعدن هو تسالي إن حالدي وقت جاسي وكجبيجي أو يوسف بره أي كبدلين حالدي وكجبيجي عبد القادر حرسي يميم يدو ولي بقى يصيرتي أما السوق عليه وقت عصرية أو ولي بقى تمركي يرجعنا أي وقت يدي دمبه اسكو ملك شغين تيرين isla markaana qaban jireen shaqooyinka kala duwan ee ay bulshadu wada qabato hadaba gabaygan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam ma sooran kartaa wuxuu ku soo aaday waqti loogu tala galay in uu gabaygaasi tiriyo guur aan kala aadaday Yamyam ba xaqiiqda u dhow sababtoo ah xilliga waxa ahayd xilli dumarku ay si qaab daran u labisteen si xun u socon jireen waqtiyada uu sheegay uu leeyahay guura bahaleeyo oo macnaha waqtiga xun oo aan gabdhaha ku wanaagsaneyn kuwa soconaya oo uu tilmaamay وارنتيس خلط بقى تاس إن لبسكي مركها شري يو مدان رج يدمر بأكل جرام وايب ولا يهي وارن وناق إشار إسروال قبتها إلا أو مدح شرط إن ننتهي إن ناقتها لما كلا جرنايو إلا هذا أنا وقيل